kobaca xawliga ah iyo saameynta xooggan ee warbaahinta bulshada social media ee gudaha dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya ayaa si weyn waxa uu u muuqdaa mid u sii baabiinaya isla markaana u aafeenaya da'yarta Soomaaliyeed iyo dhaqanka wanaagsan sidoo kale la burburinaya akhlaaqiyadka asaasiga ah ee ay mar caanka ku ahaayeen ummadda Soomaaliyeed warbaahinta bulshadu kaliya ma aha adeegayaal iyo agab loo adeegsado in si weyn la iskugu tabiyo dhinaca wacalaha xogaha iyo xiriirka qoysaska laakiin sidoo kale waa aafo ballaaran haddii aan loo helin nidaamin heer sare ah oo dhinaca sharciyada iyo sidoo kale ka hortagga akhlaaqiyad burburinta iyo dhibaatooyinka horta leh ay la timid daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena warwareed oo ku eegano cilmi baaris kooban oo aynu ku sameynay sida ay ummadda Soomaaliyeed ay u baabiinayso warbaahinta gaar ahaan markay gacanta u gashay in badan oo kamid ah dadka aan ahayn iyagu kuwii ehelka u ahaa iyo sidoo kale dad aqoon iyo akhlaaqiyadka asaasiga ah aan ku maamulayn warbaahinta bulshada sida weyn u soo shaac baxday qarnigan 21aad sidoo kalena loo yaqaan qarnigii warbaahinta iyada oo dunida reer galbeedku ay yihiin kuwa ugu badan ee markii horeysay u maleynayay inay ka macaasheen ayaa haatan dalalka adduunka oo dhan gaal iyo islaam waxay ku baraarugsan yihiin aafada iyo dhibaatooyinka lixaad kale ee warbaahinta bulshadu ay soo kordhisay tio ay dhinaca socoto arrimaha horumarka iyo dhinaca tabinta wararka xogaha keenistooda iyo xiriirka qoysaska iyo isku xidhka aadanaha warbaahinada dhinaca social media ama warbaahinta bulshada ee soo kordhaysa kaliya ma aysan keenin inay dadku si dhow u wada xiriiraan isla markaana ay si wanaagsan ula socdaan waxa adduunka ka gees ka dhacaya laakiin sidoo kale waxa ay la timid dhibaatooyin hor leh kadib markay yimaadeen muuqaalada maqal iyo muuqaalka iyo sidoo kale in qof walba uu mas'uuliyadii warbaahineed isagu gacantiisa ku qaatay warbaahin si guud waxa laga wadaa qalab kasta oo wax tabiya iyo agab kasta oo xalaalaya taasina kama duwana kaliya bartaada Facebook iyo Twitterka TikTokka iyo meelaha kale ee maxalliga ah sida Telegram WhatsApp iyo wixii lamid taasise waxay u baahan tahay mas'uuliyad aad u weyn iyo sidoo kale in ay fahanto qofku ama gabadhu ama wiilku dhibaatada lixaad kale ay yeelanayso wadamada ay warbaahinta bulshadu asalkeedu ka timid ee qarbiga ugu horeeya dalka Mareykanku waxa la sameeyaa shuruuc tirapeel ah oo isxigxigta taasoo lagu yareenayo aafada ay leedahay arrintaasi kadib markay ogaadeen in burbur dhinaca akhlaaqda oo ballaaran kuwa qoysaska ah kuwa waxbarashada ay carruurta ka aafeeyeen jihayn xun iyo sidoo kale rabshado kicin dhibaatooyin aad u xooggan iyo sidoo kale in dadka laga xado xogtooda ay isugu darsantay Kongareeska dalka Mareykanka ayaa sanad iyo bar ka hor waxa ay ugu yeedheen aqalka afaafka hore madaxa guud ee shirkadda Facebook Mr. Zuckerberg kaasoo ay weydiiyeen xogo iyo su'aalihii ugu yaabka badnaa ee abi mid ka mid ah su'aalihii la weydiiyey Mark waxaa ka mid ahaa bal in uu sheego xalay hotelka uu ka saxday magaalada Washington ee dalka Mareykanka maadaama uu gobolka California degan yahay kadibna uu yeeritaankii aqalka Kongareeska iyo wicitaankii loogu yeeray balanta loo qabtay kaliya uu ku yimid lana hubay lana ogaa in uu safar ahaan ku joogo magaalada Washington ee caasimadda cariga Mareykanka laakiinse si fudud maadaama su'aashu ay tahay su'aal dhinaca sharciga la xiriidha iyo xogta khaaska ah oo qofna uusan rabin inuu sheego meesha uu degan yahay ama meesha uu ku nool yahay ayuu si fudud u yiri ma rabo inaan kuu sheego sababta ayaa uu warkaasi weydiiyay xildhibaanka oo asaga ujeedadiisu ay ka fogeed kaliya inuu ogaado goobta uu seexday Mark Zuckerberg waxa uu sheegay in ay ay tahay taasi xog isaga khaas ah sida daraadeedna meel uu xalay jiifsaday in uu maanta ka sheego fagaare la duubayo iyo warbaahin aysan saxayn taas ayuu si fudud markaasi xubintii baarlamaanka hayday weydiinaysay ugu sharaxday uguna sheegay in ay tahay xog kasta oo qof gaar ah uu leeyahay in aad faafiso dadka la wadaagto ka faa'iideysato kadibna aad ku taageerayso ama ku meeshan garayso waxyaalo xayisiisyo iyo waliba xogahooda qoliyo kale u sii gudbiso inaysan saxan ogoobay taasi ma ahayn barbilowga hanaanka la sameeyay laakiin waxa kale loo ogaaday rabshadihii dalka Mareykanka ka dhacay iyo doorashadii 2016 oo isaarna intuba inay door weyn oo muhiim ay ka ciyaartay warbaahinta bulshadu soo shacbixii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump waxa ugu badnaa uu isticmaalay waxay baraha bulshada Facebook iyo Twitter wuxuu si weyn markaasi u qori jiray qoraallo isaga uu gacantiisa ku qori jiray hadallo uu iska duubi jiray iyo muuqaallo toos ah uu soo gali jiray hanaanka uu wax u gudbi jiray dhamaantoodna waxay ahaayeen kuwo dadka cilmiga heerka sare leh oo dhan ay ku tilmaameen in ahayn nacayb waxa uu duri jiray gabi ahaanba bulshada aan cadaanka ahayn oo dhan sidoo kalena wuxuu ku tilmaamay muslimiinta in la iska xayiro asagoo soo saaray halkudhigi caanka haya Trump loo yaqaanay Muslim ban ama in muslimka laga mamnuuco
dalka Mareykanka inkastoo waxyaalaha qaarkood uu ugu talagalay inuu dadka ku kiciyo isla markaana uu ku kasbado wax magaratada iyo dadka aqoontoodu hooseysay reer baadiyaha iyo kuwa beeraleyda dalka Mareykanka oo ah kuwa ugu badan iyo dadka cunsuriyada madax martay cunfi iyo qaab cunsuriyad ahna uu ku amaamudo arinta haddana ugu yaraan 5 dal oo Soomaaliya ku jirto ayuu markii uu sidaa u qabsaday xilkaba uu ka mamnuucay in dalka Mareykanka ay cagsi u galiyeen isla markaana waxa uu halkaasi ka tusay inuu qayb ahaan qabtay waxa uu ugu yeeray wixii uu ballan qaaday taasi ma aysan sii joogsan xataa kolkii ay dhacday weerarkii bishii Janaayo ee sanadkii 2021 ka dhacay aqalka Koongareeska dalka Mareykanka kicin yar oo kooban oo ku qoray barta Twitterka oo uu yiri dalka Mareykanka xoreeya ayaa jabhad iyo kooxo wax qarbuda waxay ku yaaceen bartii la doonayay in lagu gudoonsiyo shahaadada lagana dhawaaqo natiijada rasmiga ah ee guuleystaha madaxweynaha dalka Mareykanka oo markaasi noqonayay Joe Biden xataa uu ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenkiisa oo asagoo ah gudoomiyaha golaha sanadka marka ay noqoto qofka meerinaya ama yeedhinaya qofka ama ruuxa guuleystay inta kaliya maahe markii ay ku soo biirtay hanaanka warbaahinta baraha bulshada TikTok arinta faraha ay ka sii baxday mid ka mid ah khubarada tiknoolajiyada dalka Mareykanka ahna madaxa guud ee shirkadda Apple iyo asaasayaasha Tim Cook ayaa mar laga soo xigtay in isaga taladiisu aysan ahayn in caruurta ka yar 20 jirka oo dhan loo ogolaado inay isticmaalaan telefoonno iyo tiknoolajiyad hadday aniga tayda ahaa lahayd ma aan u iibiyeen ilmahayga ayuu yiri ana awowga u ahay telefoonka gacanta ee lagula hadlo ogobi ninka sidaas leh waa shirkadda adduunka ugu ballaaran ee wax soo saarka dhinaca samaynta tiknoolajiyada telefoonada iyo khadadka la iskula hadlo iskale ee Apple loo yaqaan dhanka kale dalka Soomaaliya iyo dhalinyaradiisa ayaa waxa si weyn u aafeeyay burburinta dhinaca akhlaaqiyadka iyo arrimaha qoysaska oo si weyn ee baraha bulshadu u sii qaadanayaan marka laga reebo qabyaaladda iyo cunfiga faraha badan ee laga afuufayay warbaahinta taasoo xataa qayb ka qaadatay rabshadihii xilligii doorashada dalka Soomaaliya ka dhacday sanadihii 2022 oo ahayd hanaan ay isticmaaleen iyo agab siyaasiyiin xataa weyn ka dameeyeen dad qabyaalad iyo kicin iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii maleeshiyaad la baxay badbaado qaran oo ayagana lagu soo bandhigayay si maqal iyo muuqaal baraha bulshada ogoobay waxa taasi dheer dhaafooyinka kale ee ku hayso bulshada Soomaaliya mid ka mid ah dadka reer galbeedka ee ayagu sida foosha xun u isticmaala warbaahinta bulshada oo intuu meel istaago gabdhaha marba wax weydiiya imsa saaxiibaad yeelatay iyo hadallada kale maalayacniga ah ayaa waxa uu ku yiri mid ka mid ah dadkii uu hadalka ka qaadayay haddii aad tagi lahayd Hindiya isla markaana aad gabdhaha Hindida ah aad mid ka mid ah aad weydii lahayd imsa saaxiibaad aragtay ama isla kulanteen waxaad heli lahayd birbaaxooyin degdeg oo isxiga laakiinse Soomaaliya hadeerto taas kama jirto dhawaan waxaan daawaday muuqaalo muujinaya fulxumooyinka iyo xumada marka dambaysa sii faafaysa su'aalo dad weydiiya dadka ayaa ku soo baranaya baraha bulshada waxayna weydiinayaan waxyaalaha ka baxsan dhaqanka wanaagsan ilbaxnimada iyo diinta suuban iyo dhaqankii maguuriga ee reer baadiyaha ahaa ee maguurtada ahaa ee Soomaalida lagu yaqaanay waxaase kaaga sii daran in xataa gabdhihii laga saaray xaaladda oo bedelkii aynu filanay marka gobol Soomaaliyeed oo joogta magaalo Soomaaliyeed la weydiiyo hadallo delqaaf ah oo waxa ma taqaanayo kala ah in ay ahayd inay dharbaaxo huwiso laakiin bedelka waxa ayba ka jawaabaysaa su'aasha iyadoo waxyaalaha qaarkood ku dhiirinaysa kuwa kalena waxay ka dhigayaan su'aalo dhaqan xumo ah inay yihiin kuwa cilmi diineed ama mid maadda la xiriira haddaba tani waa aafo aad iyo aad u weyn wadamada caalam islaami sida wadamada Saudi Arabia, Pakistan, wadamada Nigeria iyo wadamo kale oo waaweyn waxay soo saareen go'aamo la yaab leh. Hindiya ayaa ku biirtay in TikTok-ga gabi ahaantood la xayiro. Pakistan oo ay saaxiib dhow yihiin xataa Shiinaha barta TikTok-ga waxay saartay xayiraado aad u waaweyn waxaana laga mamnuucay in dadka da'da yar ilaa 18 jirka ka yar loo ogolaado in ay iska soo galaan maqal iyo muuqaalana iska duubaan dabeedna halkaasi waxay doonaan ka shubaan taa waxaa sii dheer in dadka wax gudbiyaasha hadday yihiin youtuberska warbaahinta bulshada kuwa isticmaala facebooka onlineka kuwa soo gala inaan loo ogolayn waxyaalo akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka sooban xadgudub ku ah Soomaaliyase way sii siganaysaa marka dambaysa hal abuurka yar aqoonta aad iyo aad u liidataa iyo agabkan oo gacanta u galay dad wax magarataa ayaa waxa uu keenay marka dambaysa in akhlaaqiyadku ay faraha ka hadaan si kale marka loo dhigo Soomaaliya waxa lagu tilmaamaa meelaha dadka raaciyada ugu faraha badan ee Facebook iyo YouTube ay leeyihiin
dadka ugu waxtarka yar markay noqoto inay contribute gareeyaan ama in ay wax ku biiriyaan umadnimada akhlaaqiyaadka waxbarashada sayniska tiknoolajiyada cilmi baarista iyo wax la xidhiidha dunida kale dadka aadka loo raaco ama ha noqdeen youtubers ama ha noqdeen sidoo kale baraha facebooka ama si kale dad markaasi sameeya hilaadin falanqeymo iyo barnaamijyo waaweyn waa dad uun ay xun ka jilaaba karaan ummadooda halka hoos ilaa xad loo dhigo dadka kale loo yaqaano controversial ama dadka waxyaalaha iskhilaafsan ama diidan bulshada ama dhibaato u keeni karaya faafinaya marakan haddaba see wax looga qaban karaa 3 arrimood oo tallaabo oo degdeg ah waa in la qaadaa marka horeysa waa inay dawladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada tarapeelka ah oo kaashanaya shirkadaha isgaarsiinta ee wadanka ka jira ay soo saaraan shuruuc xadidaysa hababka loo tabinayo wax in aan la soo deynin muuqaalo gabi ahaanba akhlaaqiyaadka dadka wax u dhibaya sidoo kalena kor u qaadaya arrimaha la xiriira gogasha iyo sidoo kale dilaya ama aafeenaya masqaxda mabaadi'da iyo akhlaaqiyaadka guud qof marka uu muuqaal soo duuba af Soomaali ku hadlaya oo qofka wax qora iyo kan waxba qorinba isku si ay u dhageysanayaan oo ku saabsan arrimo gogoleed isla markaana meel public inta laga soo duubo la soo dhigo fagaare waxa loo maleynayaa arrintaas inay tahay wax iska caadi xataa dalka Mareykanka marka 10ka habeenimo la gaaro ayaa ugu horeysa aflaanta loo yaqaan kuwa dadka markaasi maryaha iska dhiga ay soo galaan ama se barnaamijyada showska waxaan loogu talagalay marka carruurta Mareykanku seexato in la soo geliyo haddii xitaa la soo deynayo qodobka saddexaad ayaa culimada bariga ugu dambeeyay 2 dhibaato oo waaweyn ayaa haystay waxaa la isku dabaqay dhibaatooyinka waaweyn ee wadanka ka jira oo ay kamid tahay dagaalada xaqdarrooyinka duulaamada iyo arrimaha akhlaaqiyaadka burburaya culimadu mararka qaarkood way ka hadli jireen arrimaha akhlaaqda burburaysa iyo sidoo kale dad hormood u ah inay xumeeyaan bulshada Soomaaliyeed una horkacaan god aad iyo aad u madow dabadeedna waxaa la arkay dadkaasi aan idin sheegay baraha bulshada awoodda xoogan ku leh raacyada faraha badan haysta oo ku eedeynaya kuna cambaareynaya culimadii Soomaaliyeed maxay uga hadlayaan gobadh ka hadashay Google maxayse u falanqeynayaan ama u cambaareynayaan haweeney sarwaal xiratay ayagoo markaas yasaya ama hoos u dhigaya qadiyada ay culimadu ka hadleen way ka ballaaran tahay kana salweyn tahay gabi ahaanba wax kasto dhaca in bulshada si saf ah loo dilo akhlaaqdooda culimaduna inay arrintaasi ka gabangaabsadaan oo ogana gambadaan waxoogaga cambaareynta ay isla dadka ficiladaasi u ololeynaya soopinayaan waana mas'uuliyad ay luminayaan waana inay doorkaasi xoojiyaan soo celiyaan in gabi ahaanba ay bulshada ka wacyi geliyaan in dadka wax magaratada lagu sii daayo kaamirooyinkooda iyo telefoonada ay gacanta ku wataan ay la roorayaan hadhowtana gobadh inta la yiraahdo su'aal baan ku weydiinaya ay noqoto arrimo yaqyaqsi oo gabi ahaanba aan ku wanaagsanayn Soomaalnimada qodobka saddexaad waxa weeye dadka xumaan faafiyaasha kuwa waxa soo duuba waxa ka daran kuwa sii faafiya ku qosla like faraha badan saara sii share gareeya qaarkoodna kabadooda oo doodgaliya taasi waxay qayb iyo baritaan u sii noqonaysaa saameynta qofkan uu raadinayay istaasoo uu arki karayo inuu bulshada wax u soo qabtay markuu arko malaayiin qof oo daawatay ogobi iyadoo la joogo akhru samaan haddana mas'uuliyad weyn ayaa saaran dadka iyo warbaahinta waxgalka ah iyo dadka cilmiga u leh aqoonta habka wax loo maamuso loo gudbiyo sidoo kalena gabdhaha Soomaaliyeed ugu yaraan waa inay soo celiyaan doorkii dhirbaaxada ee ahaa qofka akhlaaq xumada iyo su'aalaha khaldan weydiiya inay dhagi dhama fujiyaan oo mahindida dhagaxa caabuda marka roobkeeda dadkuna ku kacaan tuurta ku qaata ilaahyadooda ayaad ka liidataa oo haddii la weydiiyo arrimo sariireed iyo arrimo aad u fool xun dhag iyo dhaman fujiya kuwa ayagu waxaas la soo doonta amaanaal